walaalayaal waxaan isla wadaagaynaa mowduuc aad muhiim u ah marka la fiiriyo shareecadu waxa ay ka tidhi, qur-aanku waxa uu ka yidhi, sunnadu waxa ay ka tidhi, taariikhda islaamku waxyaabaha ay ka tidhi. mowduuc runtii la odhan karo waa udub dhaxaadka shareecada. waa mowduuca lagu magacaabo alcafwu والتسامح بين المسلمين وبين المؤمنين وبين الناس أجمع. cafiska iyo isa saamaxaadda wuxuu ka mid yahay akhlaaqiyaadka ee lagu ammaano bani aadamka guud ahaan, gaar ahaanna diinta islaamku ay wax badan ka hadashay. walaalayaal, tasaamuxa iyo cafiska waxaa la geliyey qoysaska xaasaska isu ah marka hore isguursanayaan, heshiiska ay gelayaan, marka ay isqabtaan, sida ay wada dhaqmayaan, haddii ay kala tagaan, qaabka ay u kala tegayaan. sidoo kale cafiska waxaa la geliyey dadku ganacsiga iyo beec iyo shiraha ay wada yeelanayaan iyo sida aan looga maarmin. waxaa cafiska la geliyey dadka qaraabada ah iyo wada dhaqankooda, iyo haddii wax dhex maraan sida ay cafiska iyo tasaamuxaas ay u kaalmaysanayaan ee ay arrimahooda ugu xalinayaan. cafisku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ambiyada lagu ammaanay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu horeeyo. oo nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo maka jooga yaa waxaa kusoo degay qur-aan ay ka mid ahayd aayad ku jirta suurat al-acraaf oo nebiga la leeyahay calayhi salaatu wasalaam, khudi alcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin. cafiska qaada baa la leeyahay arrimahaaga oo dhan, hadday ganacsi tahay, hadday dacwo tahay, hadday mucaamalo tahay, haddii ay safar tahay, haddii waxbarasho iyo dad arday ahoo isla jooga oo isku meel degan ay tahay, haddii arday iyo macalimiin la yahay, haddii qoysas la yahay, haddii dad dowladda ku wada jiro la yahay. nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu amray inuu xagga cafiska isxijiyo. khudi alcafwa ayaa la yidhi. dhaqankii nebigana calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu uga mid ahaa. qoysasku haddii ay isqabtaan oo weliba ay gaadhaan heer ay kala tagaan, iyadana shareecadu waa tan ay ka hadashay oo ninka iyo xaaskiisa oo marxalad talaaq jooga, suurat albaqara markii laga hadlayay waxyaabaha lagu soo daray waxaa ka mid ahaa wa an tacfuu aqrabu litaqwa. inaad iscafidaan ayaa wax walba kaga habboon, oo xagga alla cabsiga uga dhow, oo xagga alla u dhowaanshaha uga dhow, oo xagga jacaylka ilaahay la jeclaanaya ama isagu dadka jeclaanaya ugu dhow. adduunyada iyo cafiska haddii la isbarbar dhigana, xagga cafiska in la isxijiyo ayaa cabsida ilaahay u dhow. aayaddaas ereygaasi uu ku jira wa an tacfuu aqrabu litaqwa waxay ka hadlaysay ninka iyo xaaskiisa oo gaadhay heer ay kala tagaan, oo markaa laga yaaba inay isku qabteen meherka noociisa. kadibna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kula taliyey inay gabadhu xaqeeda xataa ka tanaasusho, ama ninku uu xaqiisa ka tanaasulo oo cafis uu la yimaado, oo dhinaca cafiska uu ismarsiiyo, yaa wax walba uga khayr badan. xagga ilaahay ka cabsigiisana taasaa ayaa uga khayr badan, taasaa ugu dhow. sidaa darteed bu ilaahay wuxuu leeyahay wa an tacfuu aqrabu litaqwa. cafiska halkaa waxaad ka garanaysaa qofka cafiska uu ka suurtoobayo waa qof alla ka cabsigiisa uu weyn yahay. qofka inuu wax cafiyo uu wax saamaxa uu ka suurtoobayo waa qof xagga aakhiro isxijinaya oo yaqaano aakhiro waxa uga horeeya waxa uu yahay. sidoo kale walaalayaal, abubakrin sidiiq khaliifkii nabiga bedelay calayhi salaatu wasalaam radia allahu tacaala canhu, waxaa jiray qoys uu mas-uul ka ahaa oo isagu uu maxaanku idhaahdaa gacanta ku hayay, oo nin saxaabi oo jaliila oo weyn uu ku jiray oo qaraabo ahaayeen. ninkaas abubakar mar uu yaraha qoonsaday
wuxuu damcay inuu xidhiidhka u jaro. kadibna ilaahay baa arrintaas fowqa 7 samaawaat, 7 samo korkooda ayuu ilaahay arrintii kasoo farageliyey. abuubakarna waxaa lagula taliyey in qur-aan lagu soo dejiyo. fariin xataa nebiga looma soo farin oo si kale looguma waxyoonina, qur-aan baa lagu soo dejiya. waxaa leeyahay walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum. war inaad wax cafiyaa layidhi, oo wax saamaxa, oo wax ka jeesta, oo wax aakhiriya adduun haddii la isbarbar dhigo xagga aakhirada isxijiya. inaad xagga aakhirada isxijisaan waxay keenaysaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu idiin dambi dhaafo. alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum. markaad cafiska aada hilmaamaysaan oo tasaamuxa aada hilmaamaysaan, ma jeclidin miyaa, ma danaynaysaan miyaa inuu ilaahay idiin dambi dhaafo? qof muslima oo aan jeclayn in loo dambi dhaafana ma jiro, waan ognahay. laakiin mararka qaarkood baa shaydaanku intuu inaga sayd caleeyo oo wax ina hilmaansiiyo oo khayrka ina hilmaansiiyo ayaa laga yaabaa in maxaanku idhaahdaa meeshii uu rabo inoo kaxeeyo, wixii khayr ahaa ee dambi dhaafka ilaahay ugu badnaana uu naga leexiyo. markii hore waxaa la yidhi waan tacfuu aqrabu litaqwa, inaad alla kacabsiga waxaa u dhow inaad cafiska qaadataan. markii ku xigtay waxaa la yidhi wa an tacfuu maxaanku idhaahdaa khudi lcafwa. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi cafiska qaado. markaana waxaa la leeyahay wax cafiya, ilaahay inuu idiin dambi dhaafo miyadaan jeclayn. sidoo kale dadka aan dunuubta daa'imin oo dembi markay galaan aan ku sii jirin, oo inay markiiba ka cararaan ilaahay tabaaraka wa tacaala maskaxdooda uu gelinayo. dadka waxaa weeye gacmaha furan oo wixii khayr ay hayaan bulshada aan kala bakhaylayn. dadka janno samaawaadka iyo arlada ka ballaadhan raadinaya. dadka waxaa weeye maxaanku idhaahdaa ilaahay raalli ahaanshihiisa raadinaya. waxaa lagu soo daray dadka markay cadhoodaan cadhadooda aan sii joogtaynin oo markiiba isxasuusta oo dadkii ay wax dhex mareen ka fiiriya dhinaca ilaahay iyo aakhiro iyo jannada iyo ka fiiriya, ee iyaga wixii dhex maray aan ka fiirin. waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin baa ilaahay yidhi. waalkaadimiina algayd waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin. dadka cadhadooda caburiya oo markay isku caburinayaan dee inay ciishoon yihiin oo ciil uu hayo oo inay aarsadaan ay ku fikirayaan ma ah, xaasha. waa inay candhuuftooda liqayaan oo qalbigooda ay daaweynayaan oo shaydaan ay iska caydhinayaan oo ilaahay ka magangelayaan si ay ugu soo degaan heerkii cafiska iyo heerkii tasaamuxa iyo heerkii dhaqan wanaagga iyo heerkii xidhiidhka wanaagsan. waalkaadimiina algayd waalcaafiina can innaas. cafiskaas ay dadka cafinayaan iyo cadhadii ay isku celinayaan oo shaydaan ay iska caydhinayaan, inay wixii ay haystaan wax ka bixinayaan, inay janno raadinayaan, dadkaas oo dhan waa dadka muxsiniinta ah. allahna tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi wallahu yuxibu lmuxsiniin. ixsaankuna dee waxa weye waa martabada ugu sarreysa oo iimaanka way ka sarreysaayo. ixsaanka waxaa la yimaada qof ilaahay u caabudaya sidii isagoo arkaya oo kale. waxyaabahaan soo qaadan karna ee tusaalayaasha waxaa ka mid a nabigeena calayhi salaatu wasalaam magaaladii maka ahayd uu ku dhashay, ee uu ku weynaaday, ee uu ku barbaaray, ee caruurtiisa oo dhan uu ku dhalay. khadiija caruurta ay u dhashay oo dhan ay ugu dhasheen, ee loogu waxyooday, ee nasabkiisa u deganaa. quraysh baa ka saartay ilaa uu miciin baday inuu 450 kilomitir meel hadda lagu qiyaaso, 450 meel lagu qiyaaso oo madiina markaas ahayd, inuu markaa lug uu ku tago. waagii dambe ee madiina uu xajka ka soo aadayeyna 9 maalmood iyo ka badan baa laysu soconay markii gaadiidka la raaciyo. magaaladaasuu miciin baday inuu markaas uu cararo. laakiin 8 sano kadib oo nabiga calayhi salaatu wasalaam madiine intii looga daba tegay, magaalada madiine la go-doomiyey
oo xataa isagii intii la dul tagay in la dilo la damcay oo madaxa laga dakray oo ilkihiisa qayb ka mida la jabiyey oo Quraysh ay go'aansatay inay magaalada Madiina baabi'iso xagga Ilaahayna aysan ka qadarnaanin 8 sano kadib waa kii magaalada Maka qabsaday reer Makan ay hoostiisa yimideen ka bacdi su'aashay weydiiyeen wax xusatiin maanta su'aal buu weydiiyo wuxuu ku yiri maanta maxaad u maleynaysaa inaan ku sameyn doono markay hadleen wuxuu ku yiri iska taga wax la idin haystaa ma jiro haddii bani aadamun ciil haya uu aarsanayo oo shaydaanku uu qurxinayo nabiga ka aarsan la alayhi salatu wasalaam laakiin afisku martabada uu jooga buu nabigu ogyahay alayhi salatu wasalaam adigana maanta qofka ardayga ah ama qofka macallinka ah ama qofka muslimka ah ee taqaanid dadka macaamiladu dhex marayso waxa in idin dhex maraya ee isku qabsanaysaan inta iyo in la eg iyo in la eg iyo in u dhowtoona ma ah wax yar baa la isku qabtaa oo shaydaanku uu weyneeyaa laakiin shariicada haddii qofku uu xasuusto wuu ka tanaasulaya nabiyullaahi yuusuf baa kaaga filan waxa walaalihii baa qaaday oo ceel ku riday ceelkii baa intay qola ka soo saartay bay iibiyeen gurigii boqorkaa la geeyey oo haweentiisii baa damacday iyo haweenkii magaalada qaybihii ugu waaweynaa xabsi baa lagu riday been abuur intii lagu sameeyey intaasoo dhan kadib bay walaalihii is arkeen markaasay ka codsadeen inuu cafiyo isagaaba wuxuu yidhi laa tathriba calaykum alyawm yakfiru allaahu lakum ilaahay idin dembi dhaafiyo xaggayga waxba laydinkama haysto bal inta marxalee lasoo marsiiyey fiir ceel baa lagu riday si u dhinto xabsi baa la geliyey waxaasoo dhan waxaa ka weyn wixii aakhira jira ka weyn marka walaalayaal ninkii saxaabigaana wada xusteen oo kusoo gabagabeynayna insha Allah kalimadan iyo kulankan nin saxaabi oo nabigu calayhi salaatu wasalaam 3 maalmood oo isku xigta uu yiri nin ahlu janna ah masaajidka soo gali doona hal nin buu noqday kadib markii saxaabada qayb kamid u tageen ee gurigiisa la degeen ee ay u fiirsadeen cibaadaadkiisana ee wax dheeriye ka waayeen hadalkii uu ku jawaabay wuxuu ahaa anigoo qof muslima wax u qaba ma seexda wiil hurdayga ma timaado marka walaalayaal dadku ha barteen fiqiga cafiga iyo tasaamuxa caafimaadku u roon yahay dadnimadu u roon yahay diintu u roon yahay aqligu u roon yahay wax walba waa u roon yahay aakhiriya adduunna islama eka qofka haddaad si kasta uga aarsato aakhiroon baa isugu tagaysaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khayrka nagu duwo cafiskana uu noo badiyo inaan baranno dhinac wanaagsanna aan ka fiirino aad baad u mahadsantihiin haddii kulamo kale aan ku kulannana waa arkaynaa insha allah baaraka allahu fiikum wajuziitum khayran wasala allahuma calaa nabiyina muxamed